assalaamu calaykum waraxmatullah. waa jawaabihii su-aalihii aan shalayta soo gudbinay ee qeybtii afaraad ee barnaamijkeenii tijaabi aqoontaada diimeed. waxaan u ballansanay inaan wakhtigan oo kaleeta ka jawaabno su-aalaha, sidoo kalena aan sheegno magacyada dadkii ugu horreeyey ee kasoo jawaabay. talow yaa ku guulaystay maantana kaalimaha hore. balse walaalaha khayrka jecel ku xidhan janalka dacwada diinta ilaaska islaamka, intaynaan barnaamijkan u gudagelin waxaan idin ogeysiinayaa oo aan rabaa inaan idinla wadaago in aan rabo ama aan istusay oon arkay inaan barnaamijkan wax ka bedelo, inaan barnaamijkan ku bedelo mid la mid ah oo dacwi ah oo isagoo kaleeta ah laakiin wax yar ka bedelan, oo aan rabno inaan ugu magac daro hal taclam ama ma og tahay. wuxuuna ku saabsanaan doonaa diini insha allah. meeshaan kan su-aalaha iska weydiinayno, haddana aan maalinka dambe jawaabaha soo gudbinayno, inaan ayaga oo isla socdo aan dhahno ma og tahay waxa iyo waxaa inay sidaa ahayd, nabiga inuu sidaa ahaa, saxaabiga inuu kaa ahaa, inaan ma garatay aan kaa ka dhigno ayaan jeclaystay. waayo waxaan ku arkay oon qiimeyn ku sameeyey dadka ku xidhan barnaamijkan iyo qaabka ay jawaabahooda usoo gudbinayaan. marka taa la socda insha allah. barnaamijkan wuxuu noqon doonaa siduu kanba ahaa mid maalin dhaaf ah, wuxuuna soo geli doonaa afurkii insha allahu tacaala. waxaana ugu horeyn doontaa berri oo ah 10 ramadaan idamka ilaahay. marka ku xirnaada ha laga faa'iidaysto. sidoo kaleeto waxaan soo dhaweynayaa dhammaan walaalaha cusub ee kusoo biiray channelka. waxaan leeyahay soo dhawaada insha allahu oo kale ee aan isla faa'iidaysanne. waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay ama ku xirnaa barnaamijkii tijaabi aqoontaada diimeed. waxaana rajaynayaa inuu kan kaleete nooga faa'iido badnaan doono. dadkii ugu horreeyey ee ka jawaabay su-aalihii u dambeeyey waxay ahaayeen oon kasoo qaadanaynaa 4 qof: xanaan maxamed, hodan xaashi, iyo wardheer cajaayib, iyo ubax khaliif. 4taa qof ayaa dadkii ugu horreeyey ee sida saxda ah ooga soo jawaabay ayay ahaayeen. waxaan leeyahay hambalyo maadaama aad noqoteen dadkii ugu dambeeyey ee nasiibka u yeesha inay kasoo jawaabaan su-aalihii u dambeeyey, maadaama oo sidaan sheegnay baan rabno inaan barnaamijkan mid kale ku bedelno. haddana waxaan guda gelaynaa inaan su-aalihii dib ugu laabanno oo aan jawaabahoodii oo sax ahana soo gudbinno. su-aashii koowaad aan isweydiino waxay ahayd waxaad sheegtaa 5 rasuul ee lagu magacaabo ulul casmi. 5taasi waxay kala yihiin nabiyullaahi nuux calayhi salaam, nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam, nabiyullaahi muusa calayhi salaam, nabiyullaahi ciisa calayhi salaam, iyo nabiyuna maxamed sala allahu calayhi wasalam. 5ta ayaa lagu magacaabaa ulul casmi. su-aasheenii labaadna waxay ahayd waxaad sheegtaa rasuulkii u horreeyey ee ilaahay subxaana wa tacaala dad u diro. jawaabta saxdana waxaa weeyaan nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayaa ah rasuulkii u horreeyey ee ilaahay dad u diro. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan miyuuna nabiyullaahi aadam nabi ahayn? nacam, nabiyuna aadam ama abuuna aadam wuxuu ahaa nabi, waana abulbashar. ilaahay baana gacantiisa ku abuuray lana hadlay, laakiin nabi iyo rasuul farqi baa u dhexeeya. marka nabi nuux wuxuu noqon rasuulkii u horreeyey ee dad loo diro. su-aasheenii saddexaadna waxay ahayd nabiyullaahi saalix qoomkii loo diray kuway ahaayeen, magacooda sheeg. kuwaasi waxay ahaayeen ama qoomkii nabi saalix loo diray reer thamuud. ilaahayna wuxuu yidhi wailaa thamuuda akhaahum saalixan. reer thamuud waxaan u diray walaalkood saalix. su-aasheenii afaraad waxay ahayd nabiyullaahi huud qoomkii loo diray kuway ahaayeen, magacooda sheeg. waxaana weeyaan jawaabtu ree caad. ilaahayna wuxuu yidhi wailaa caadin akhaahum huuda. ree caad waxaan u diray walaalkood huud. su-aasheenii shanaad waxay ahayd waxaad sheegtaa 2 nebi ee haweenkii ay qabeen ee xaasaskooda ahaa ay gaalada ahaayeen. ayaku nebiye ahaayeen laakiin haweenkay qabeen gaalo ayay ahaayeen. jawaabta saxdana waxaa weeyaan nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luud. su-aashii u dambeysay ee aan isweydiinayna waxay ahayd waxaad sheegtaa mucjisadii la siiyey nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam. nabi waliba iyo rasuul waliba ilaahay soo diro wuxuu siin jiray mucjiso si ay dadka ugu gartaan
oo xaqa ugu bayaamiso. marka mucjisadii nabigeena la siiyey sallallahu calayhi wasallam waxa weeyaan qur-aanka oo ah mucjiso weyn, waxaana kuu cadaynaysa inuu mucjiso yahay waxyaabo aada u fara badan, sida in lagu xujeeyey gaalada iyo dhammaan cid waliba oo shaki ka qabta nebinimadiisa inay la imaadaan qur-aanka mid la mid ah. fusaxadii carab, aftahanadii iyo dhammaantood shayaadiin al-insi waljinni way ku dhici waayeen. haddana ilaahay wuxuu yidhi 10 suuradood la imaada, ma ahan 10 dhaadheer, xataa 10 gaagaaban hadday rabaan wayna awoodi waayeen. haddana ilaahay wuxuu yidhi la imaada hal suurad, ina acdayn camal, wayna ku dhici waayeen. ilaa iyo maalinkan maantaana waa la isku daylaayahay, ilaa iyo maalinka qiyaamana cid ku dhici karta ma jirto. waxaa jirtay walaalo ooga jawaabay arrintaas laylatul israa walmicraaj, ama dayixii kala dilaacay, ama nabiga, waxyaabo fara badan. laakiin waxaa jirtay mucjisooyin fara badan oo rasuulka la siiyey, laakiin midda ugu weyn waxa weeyaan qur-aanka. waa ay jiraan mucjisooyin kale oo fara badan, sida buurtii uxuda dhaqaaqday, dadkii mowdkaha dhintay ee uu la hadli jiray, iyo kuwa kaloo aada u fara badan. marka culamada ka hadlayaan qaarkoodba waxay gaarsiiyaan 1000 iyo wax mucjisooyinka nabiga, laakiin midda ugu weyn waa qur-aanka kariimka ah. 6daas su'aalood bay ahaayeen. waxaan filayaa inaad ka faa'iideen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.